nuur waxaa lagu haystaa inaad dishay cumar xasan macalin oo si bareera u dishay waxaa ku bannaan 3 jawaab midood nuur dambigaas waa galay ma gelin doodan ka qaba ha ku bannaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday dhageysiga eed ka dhan ah askari ciidanka booliska Soomaaliyeed ka mid ah oo iska ceelqaabta ee Muqdisho si bareera ugu dilay nin oday ah oo halkaasi ku lahaa goob ganacsi oo yar Nuur Daahir Geedi oo askariga dilay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin ayaa qirtay inuu ka dambeeyay falkaas isagoo u dilay muran ka dhashay 2,000 oo shilin Soomaali ah oo odayga uu kaga iibsan lahaa sigaar xiriyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida General Abdullaahi Buule Kameyn ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukun dil toogasho lagu fuliyo eedeysana Nuur Daahir taasi oo noqonaysa qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin cadaymii kale waxaan kala hor keenay baarikiiska oo ka warbixiyay goobtii crime scene management wixii uu kala soo kulmay goobtii dambigu ka dhacay sidaas darteed maadaama ay caddaatay in eedeysanuhu si bareer ah u diilay marxuumka isagoo nin booliis ah oo la rabay amniga inuu ilaaliyo isla markaa nin miskiin ah oo gadanaya gaari gacan lacagtiisi darteed inuu ku dilo waa wax xaraam ah qofku dambiile waa noqon karaa laakiin kuwa qabtay booliis baan maxkamadda waxaan weydiisanayaa in ciqaabta u qalanta lagu xukumo oo dil toogasho waxay yiraahdeen ninkii qoriyu soo qaatay odaygu wuxuu yiraahdo qori soo qaatay qorigiisa asaaska la maxaa naga dhaxay waa u yimid asagoon la hadlin ayuu baaki sigaaru ka qaatay odayga markaas uu baakada sigaarka ii dhig kelmad ugu horeysa uu saas yiri hal xabo wuxuu ku dhuftay darbiga kore markii labaad uu war sigaarkayga xoog mad ku qaadanaysi tii labaad halkaas ku dhuftay maskaxdayna ka baxday isla eedeysanaha waa soo orday mooto meesha maraysa oo bajaaj ah ayuu islaan iyo gabadheedoo saaran uu ka tuuray qoriga intuu ku qabtay waa raacay dilkana uu ka dhacay isla goobtaasi Xamar Jajab eedeysanahana uu yahay nin geystay laakiin dilkaasi uusan u geysanin si kas ah marka maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in loo fiiriyo qodobka 4aad xeerka ciqaabta xarafkiisa ga oo duruufaha dunubta fududeeyo sidaas daraaddeed waxaan codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo Nuur Daahir Geedi diyadii marxuum Cumar Xasan Macalin dhageysiga eedda lidka ku ah eedeysane Nuur Daahir Geedi intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa